السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو هذا أصحابتا مقالكاني caawa waxa uga hadlaa qaabka loo verify gareeyo YouTube-ka qaybta Google AdSense horay muuqaal waaga soo biyay qaabka Google AdSense address-ka loo bedeshto waxyaabo badan ka soo hadlay bangiga qaabka loogu xirto muuqaalkani waxa uu talagalay bas kaliya verification number-ka oo 6 number qaabka loo verify gareysto waxa loo baahan yahay verify-ga wuxuu ka saacidaa billing address-kaada address-ka dhoti lagu dhigi lahaa waaye play button-ka oo kale golden button-ka oo kale waxyaabahaas meesha lagu dhigi lahaa address-ka dhan marka waa muhiim aad u yahay sidoo kale waa qaybta bangiga ku xiranaysid oo address-ka muhiim ayuu marka waa inaad cadeysaa qofkaas inaad tahay waxay soo binayaan marka qolada YouTube-ka 6 number ayay bashqad ku soo xiraan address-kaaga ayaa lagu soo hagaajiyaa hadii uu ka qaldamo 3 weeks ku siinayaan 3 isbuuc waan arki doonaa wadi tusa 3 isbuuc markii la keeno kadib waa iska bedeli kartaa hadii aysan weli ku keenin marka ayaa codsi dirsan kartaa hadduu ka qaldamane oo address ka qaldamane kama walwaleysid marka ayaa codsi gudbisan kartaa haddana waa lagu keenaa muuqaalkii marka intaas waaga hadlaa hadii aan ugu cusubtaa fadlan subscribe inoo saar wadada ku gaari 20 subscribers ayaa haynaa waa maasantiin muuqaalka daawashadiis alla ay garay muuqaalka oo share gareeyo qaybta ugu horeysa marka ugu horeysa waxa soo galay Google AdSense Google AdSense ayaa soo galay meeshani qayb searching ayaa ku qori kartaa Google AdSense aniga kana google.com/Google AdSense ayaa loo yaqaanaa linkigana qaybtooda tusaa marka soo gashid qaybtani marka geeskani shaashada wuxuu ku muujinaa lacag qaybta dhexe lacagta iyo waxyaabaha 7 days ugu dambeeyay bishi waxa qabat waxyaabaha soo ku muujinaa kadib qaybtan geeskeena home-ku ayuu haystaa address-ka site-iska qaybta hoose ayaa u maanay ku qoran tahay payments kaas ayaa soo furay labadan ayuu ku soo bandhigaa payments info iyo verification check payments info gaas waxa ku arkay lacagtaada meesha ku marayso oo kale iyo bankiga si markaa ku xirnaysid qaybtaas la gaa aniga hadda maanta caaw mu baahni oo muuqaalka ma soo binayay kaliya bas waxa rabaa verification check 6 number ay soo diray inaad gashto oo li verify gareeyaa rabaa waxa ku dhufanaa marka verification check marka ku dhufatid way ku soo saarayeen marka wax yar qadka ayaa iska culus waa sugaa okay waa kana marka verification check ay soo saareen qaybta ugu koreyso almarxana ka qaado qaybta ugu koreyso waxay weydiin mar hore identify verification qofka xagga tusaalahan anaga Soomaaliya oo kala joogno ma lahan address-kii lamana aqoonsan YouTube-ka dalka Soomaaliya kuma jiro marka wadamadaas kale qofka ku xiranaysid wuxuu leeyahay identify or verification oo leeyahay ayaga markaad wuxuu ku leeyahay identity verification ka soo geli anaad complete ay saareen muuqaalna ma ka soo bin laakiin wax weyn ma aha waxa tusaalahan qofka Turkiga oo kale oo jooga ana wiil walaalkii hadda ku xirtay kaar wuxuu leeyahay iqaama ay dhahan kaar aqoonsi kaarkaas laga rabaa hadii qofka dalka la joogane asagana kaarkaas aqoonsiga ku xirnaysid ayaa gashanay meeshaas kadib qaybtana u maari qaybtana marka waxa laga rabaa address verification waatana marka meeshani waxa mar walba waxay ku dhahay needs attention waxa loo baahan yahay inaad taxadirtid marka degdeg iyo mal rabo marka enter pin mailing your billing address waxa la rabaa pinkiina soo gelsada 6 number wuxuuna ka kooban yahay 6 digits 6 number oo ka kooban yahay 6daas number laga rabaa marka sidoo kale meeshan hoosan waxa lagu qoray you have 3 attempts remaining aniga hadda 3 mar fursad lagu siinaa hadii aad qaladid mar koowaad mar labaad isku day kartaa hadaa qaladid mar saddexaad isku day kadib waa laga xiraa marka waa inaad taxadirtaa oo 6 number lagu soo diro saxda ah gelisaa aniga hadda 6 number waa li soo diray wiilka ay soo diray muuqaal yarna waa tusaa qaabka warqadda loo jeexdo xitaa warqadda marka lagu soo diro laba calaamad ay leedahay qaabkaas u jeexani kadib 6 number waaba arkay qaybta marka sa u gudisid muuqaalkaana fiiriyo muuqaalkaani ayaa ka arki kartiin 6daas number marka loo baahan yahay aniga hadda ma loo baahan yahay numberadaas inaad qarsatid maya 6daas number mar hadaa gashto kadib mar kale ma loo baahna waa use or one time bas hal mar inaad isticmaalo kaliya bas waa marka numberkii ay gelina kadib verify inuu idhaha rajayna insha Allah marka hal mar qaybta verification-ka hal mar marka waxa imaana meeshan pinka kor ayaa iska xaqiijinaa meesha pinka ayaa imaana marka 6 number aniga notepad ku sii qortay 6 number waaye waa iska soo koobiyeysanaba okay qaybtan le paste ku dhaana ama waxa waaye hadii aad fiiriyo 6 number waa 13 eber 725 13 eber 725
okay kadib waxaan dhahaa submit way verify gareynaa marka kadib meeshaan iska fiiri qaybtan geeska addresski iyo waxa dhan meeshaan ugu qoran yihiin qaybta addresska ku arkay kadib submit ayaa dhahaa bismillah markaas submit gareeyo waa aragtiin address verification oo tick ayaa la ii saaray hadda complete waa asigan oo wax lagu haysto male marka muuqaalkii intaas ugu tala galay muuqaalka haddii aad ka hesheen la gareeyo marka badanaa muuqaalada sidaan waa soo suubina insha allah sababtoo waxaa jiro dad badan oo YouTube oo ayagana suubisteen oo waxyaabahan u baahan waxaa kaloo jiro muuqaal wiil soo weydiiyay asagna jiro oo feasibility wax loo yaqaan copyright-ka asagna insha allah ciladaas mar waa arkay ayadana muuqaal ku soo suubi doona waa maasantiin daawashada daawateen muuqaalkaani